بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan noo socdaa taxanaha aan uga hadlaynay magacyada Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Cashirkan wuxuu ku saabsan yahay magaca Ilaahay Ar-Raxmaan iyo magaca asaga u dhow ee ah Ar-Raxiim. Magaca Ar-Raxmaan waa Allaha u naxariista ee naxariista bixiya. Ar-Raxiimna waa Allaha u roonaada. Ar-Raxmaan waa Allaha naxariista ee raxmadiisu diidayso inuu addoomihiisa dayaco. Ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariista ummaddiisa u naxariisanayo baa waxay diidaysaa in addoomihiisa uu ku arko ayagoo dayacan oo uusan u naxariisanin. saa darteed raxmaddiisaas waasica ah baa waxay keenaysaa inay cid walba ay gaarto. kelmadda Ar-Raxiim ama magaca Ar-Raxmaan qur-aanka waxay dhahaan culimmada wuxuu ku soo arooray 57 jeer, halka kelmadda Ar-Raxiim ama magaca Ar-Raxiim qur-aanka uu ku soo arooray 14 jeer. marka la isku daro bay yidhaahdeen culimmada sifada ama magaca Ar-Raxmaan Ar-Raxiim qur-aanka haddii la raadiyo ayadoo ishtiqaaqaad leh ama waxa ka dhalan kara ama magacaas meelaha ka imaan karo dhan la raadiyo, qur-aanka wuxuu gaarayaa ilaa 160 jeer wax ka badan. waxay kaloo culimmada sheegeen magacyada Ar-Raxmaan iyo Ar-Raxiim oo wada socdana qur-aanka inay 5 jeer ku soo aroortay oo ah Ar-Raxmaan Ar-Raxiim wa ilaahukum ilaahun waaxidun laa ilaaha illaa huwa Ar-Raxmaan Ar-Raxiim innahu min Sulaymaana wa innahu bismillaahi Ar-Raxmaan Ar-Raxiim tanziilun min Ar-Raxmaan Ar-Raxiim huwa Allaahu alladii laa ilaaha illaa huwa caalimu al-ghaybi wash-shahaadati huwa Ar-Raxmaan Ar-Raxiim. shantaas aayadood waxay isugu yimaadeen ayagoo wada socda Ar-Raxmaan Ar-Raxiim. waxay culimmadu sheegaan kutubadii qur-aanka ka horreeyey wixii laga hayo in ereyga Ar-Raxmaan uu aad ugu yaraa, Ar-Raxiimna uu naadir ku ahaa in laga helo, hadday tahay Al-Cahd Al-Qadiim iyo Al-Cahd Al-Jadiid iyo Anjiil iyo Towraad. waxay kaloo culimmadu sheegaan kitaabka Sifr Al-Khuruuj la yidhaahdo marka ilaahay laga sheekaynayo annagu Ar-Raxmaan Ar-Raxiim baa ku soo celcelinaa qur-aanka. ayagu laakiin waxay aad uga hadlaan ilaahay aarsada al-intiqaam ama al-muntaqim iyo ilaahay khayra leh. marka waxay ku tusinaysaa annaga meesha aan xoogga naloo saaray Ar-Raxmaan Ar-Raxiim, ayagu laakiin xooggoodu inuu koray inay wax aarsadaan ama inay wax iska celiyaan. meelaha qaar baad ka arkaysaa dadka masiixiyada ama kiristaanka ama yuhuudda dhaqamadooda iyo dhaqamada muslimiinta meelaha ay ku kala duwan yihiin baad ka garanaysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa meel kastuu dhigay, nooc kasta oo bini aadamku u baahnaana ilaahay naxariista waa u dhigay. meelaha uu ilaahay naxariista noo dhigay waxaa ka mid ah nebinimada. ilaahay nebi markuu noo soo dirayo, ambiye uu noo soo diray oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ugu dambeeyey, wuxuu noogu soo diray inuu annaga noogu naxariisto. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. waxyaabaha ilaahay naxariistiisa uu ku bixiyey waxaa ka mid ah quudka dadka ay helaan iyo risqiga dadka ay helayaan. waidaa adaqna annaasa raxmatan min bacdi daraa'a massathum. dadku markay xoogaa rafaadaan oo dhibaato ku dhacdaba ilaahay wuxuu ka saarayaa wixii ay risqiga uga heli lahaayeen oo noloshii adkeyd ay uga bixi lahaayeen. waxyaabaha ilaahay dadka ugu naxariista waxaa ka mid ah hanuunka. rabbanaa aatinaa min ladunka raxmatan wahayyi lanaa min amrinaa rashada. waxyaabaha ilaahay naxariista uu geliyey waxaa ka mid ah inuu ku dhowro oo uu ku ilaaliyo oo uu ku waardiyeeyo. wayastakhrija kanzahumaa raxmatan min rabbik. waxyaabaha ilaahay uu naxariista kuu gelinaya waxaa ka mid ah awood inaa hesho oo adiga aad awood u hesho inaa wax ku qabsato, yacni inaad awood leedahay waxaa naxariis ilaahay baxsho waaye. qaala haadaa raxmatun min rabbii faidaa jaa'a wacdu rabbii jacalahu dakkaa'a wa kaana wacdu rabbii xaqaa. ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha uu naxariista noo geliyay waxaa ka mid ah waa waxbarashada, inuu wax ku baro oo adiga wax kuu fududeeyo oo waxa wax u kala fahamto uu ku siiyo oo cilmi uu ku siiyo oo ugu horreeya cilmigaas qur-aanka. Ar-Raxmaan callama al-Qur'aan khalaqa al-insaan callamahu al-bayaan. meelaha ilaahay uu naxariista kuu dhigay waxaa ka mid ah gurigaaga, adiga iyo xaaskaaga iyo qoyskaaga dhismihiisa, oo ilaahay uu dhahay wajacala baynakum mawaddatan wa raxma. yacni reerkaas wuxuu ku dhisan yahay waxaa ka mid ah kalgacaltooyo iyo naxariis buu ku dhisan yahay. waxyaabaha ilaahay noogu naxariista waxaa ka mid ah kutubadii uu noo soo dhiibay, wa min qablihi kitaabu muusa imaaman wa raxma. waxyaabaha ilaahay uu noogu naxariistay waxaa ka mid ah roobka oo naxariisaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khalqigiisa addoommadiisa uu siiyey ka mid ah. fandur ilaa aathaari raxmatillaahi kayfa yuxyi al-arda bacda mowtiha.
ilaahay wuxuu kaloo xataa noogu naxariista dabeelahan oo horedhac u ah oo bishaaro u ah khayr soo socda marar badan. wa huwa aladii yursilu riyaaxa bushran bayna yaday raxmatih. saa darteed naxariistu waa wax ka imaanaysa ilaahay subxaanahu watacaala uuna siinayo khalqigiisa, addoommadiisa oo dhan uu siinayo, oo jamaadaadkiisa uu siinayo, wax kasta oo uumay uu siinayo. naxariistuna waxay u baahan tahay bixintii meel ay taallo oo allah subxaanahu watacaala ah, iyo baahidii oo ah annagii makhluuqaadka ahaa aan u baahannahay. ilaahay subxaanahu watacaala khayrkii buu hayaa, barwaaqadii buu hayaa, wax kasta oo wanaagsan oo dadku u wanaagsan yihiin buu hayaa, laakiin annaguna waxaana haysa baahidii aan ugu baahi badnayn inuu ilaahay subxaanahu watacaala nagu siiyo naxariistiisa. cabdullaahi ibnu mubaarak waxaa laga wariyaa inuu yidhi, arraxmaan waxaa loola jeedaa waa allaha haddaad weydiisato ku siinayo. arraxiimna waxaa loola jeedaa buu dhahay allaha haddaadan waxba weydiisanin kuu xanaaqaya ee kuu caroonayo. waa meesha marka aan ka oranayno arraxmaan inay tahay naxariis, arraxiimna ay tahay daryeel. qofka aad daryeesho, walilaahi almathalu laclaa, haddii baahidiisa uu kuu sheegan waayo waa dhibsanaysaa. ilmaha aad dhashay hadday kula hadli waayaan waxaasaan u baahanahay, waxaasaan haysta ay ku dhihi waayaan, waad dhibsanaysaa. ilaahay subxaanahu watacaala marka walilaahi almathalu laclaa, naxariisna asagaa ku siinaya oo kuugu deeqaya, laakiin haddii adigana aadan baahidaada u sheeganin ilaahay wuu ka caroonaya. saa darteed waa inaad mar walba baahidaada aad ilaahay subxaanahu watacaala la wadaagto. waxaa jira la sheegaa taariikhda inay soo mareen boqorro kala dhaqan ahaa, mujtamacaadka ay ku noolaayeen meelaha ay ka imaanaysay dhaqankooda. waxaa soo maray wadamada la yidhaahdo hindiya laisku oran jiray, boqorro dadkoodii u diiday inay u naxariistaan oy nolol fiican ku noolaadaan oy adduunyada raaxa ku helaan, ayaga naftoodana u diiday, ayagoo aaminsan adduunyadu inay sideedaba rafaad ku tahay, dhibaato lagu jireeyo, naxariis aysan oolin. laakiin markii aakhire la tago ama adduunka dambe adduunka laga tago aakhire la aado, meeshaas un wanaag in lagu sugaayo. waxaa kaloo jira boqorro la odhan jiray cajam oo ayagu raaxaysan jiray, oo ayagu ku noolaa maxaanku idhaahdaa raaxo, laakiin dadkooda u diidayey inay raaxaystaan oo nolosha ku dhibayay. kuwaasna waa kuwa lagu tilmaamay inay yihiin dad shaydaanka wakiilka ahoo ummadda inay ciqaabaan unbay u noolyihiin. ayagiibaa raaxo qaadanaya, dadkiina way dhibayaan. waxaa taariikhda soo martay boqorro jabaan soo maray oo ayagu samayn jiray, dadkay u siin jireen wanaagga, naxariista, khayrka, barwaaqada, ayaguna waa isku cadaabi jireen oo nolosha waa isku adkeyn jireen. oo waxay oran jireen falsafad dhehaysa, annagu ilaahay baan wakiil ka nahay, adduunkaana wakiil uga nahay, marka maadaama aan wakiil uga nahay adduunka, annagu waxbaan bixinaynaaye annagu waxba ma qaadanayno. saa darteed waxaasa adduunyadu soo martay, laakiin allah subxaanahu watacaala naxariista wuxuu ka dhigay wax asaguna uu bixiyo, dadkuna ay isa siiyaan. saa darteed waa sifo la rabo qofka muslimka ah inuu intuu soo qaato naxariista ilaahay siiyey asaguna intuu awoodo inuu kasii qaybiyo. waayo cibaadadaada iyo alla inaad ogoshahay bay qayb ka tahay inaad khalqigiisana aad u naxariisanayso. fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum. nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ugu jeclaa abubakar. waxyaabaha uu abubakar ku ammaanay waxaa ka mid ahayd inuu yidhi, arxamu ummatii biummatii abubakar, ummaddeeda waxa ugu naxariis badan oo ummaddeedana u naxariista waa abubakar. saa darteed qofku inuu yahay qof ummadda u naxariisto waa wax aad iyo aad islaamnimada u ka mid ah asaasiyaadka. horena aan uga soo hadalnay, la rabo qofka qiyamkiisa iyo anshaxiisa inay gasho inuu noqdo qof raxiim ah. amiirulmuminiin cumar bin cabdilcasiis waxaa la sheegaa inuu maalin salaada ciidda soo aaday. markii uu salaada ciidda soo aaday buu wuxuu yidhi, ilaaha waxaan ku weydiisanayaa inaad ii naxariisato, sababtoo ilaah waxaa tiri buu yidhi, ina raxmatullaahi qariibun min almuxsiniin, naxariisteedu waxay u dhowdahay dadka wan wanaagsan. markaasuu qalbigiisii wuxuu haddana iska yidhi, haddii aadan muxsin ahayn naxariistaas waxaa laga yaabaa inaadan helin. markaasuu wuxuu yidhi, ilaahay oo dadka soomaan ka mid ahay, wasaa'imiina wasaa'imaat, dadka soomana waad u roon tahay, ilaahu igu naxariiso. markaasuu haddana sheekiyo wuxuu is yidhi, maxaaba kasii fiican inaad ilaahay naxariista ku weydiisato inaad ahlul iimaan tahay ood iimaan leedahay. oo wuxuu yidhi, ilaahayow inaan mu'min ahay igu naxariiso, waayo ilaahay adaa yidhi buu yidhi, wa kaana bilmu'miniina raxiima, ilaahay subxaana watacaala mu'miniintiisa wuu u naxariistaa. haddana sakfigiibuu hoos usii dhigay oo wuxuu yidhi, waxaaba laga yaabaa inaanan mu'min fiican ahayn, ama mu'miniintaasba naxariistooda amay kasii fiican tahay inaan aado, anugu waxaan ahay shay walax baan ahay. ilaahayna qur-aankiisa waxaad ku tiri buu yidhi, waraxmatii wasicat kulla shay,
ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa cid kasta ma ahan wax kastay gaaraysaa, derbiyaday gaaraysaa, jamaadaadkay gaaraysaa, uunka oo dhan bay gaaraysaa. markii u dambeysay wuxuu yidhi intaas haddaanan ka mid ahayn waxaa igu dhacday musiibo, dhibaata igu dhacday. muxuu ula jeedaa? haddii aadan muxsin ahayn, kuwa sooma aadan ahayn, mu'min fiican aadan ahayn, shay xataa aadan ahayn, waxaa usoo hartay ilaahay naxariistiisa inuu ka fogaaday. waayo asagu wuxuu rabaa waddo kasta oo naxariista ilaahay ku heli karo inuu maskaxdiisa intuu ka qiyaasto midaas uu ilaahay ku baryo. marka wuxuu yidhi haddii intaaba aan ahayn, waxaan ku jiraa kuwii la yidhi aladiina idaa asaabathum musiiba qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma. kelmadda u dambaysa waaye kelmadda marka ugu qiimaha badan oo rabnay inaan kusoo gabageyno. cumar cabdulcasiis uu yidhi ilaahayow intaasba haddaysan i gaarsiinaynin inaad ii naxariisato, ilaahayow naxariistaadan waxay ii soo gaari kartaa oo aniga ii imaan karto. yacni inta aan soo maray haddaysan sabab u noqon weysa xataa inaan naxariis helo, ilaahayow naxariistaada baa ka dhow oo ka fudud oo ka sahlan inay ii timaadee, ilaahayow naxariistaada ii soo gaarsiiye. saa darteed dadkii hore waxay isku dayi jireen naxariista inay ilaahayna mar walba weydiistaan, iyaguna khalqiga ilaahay ay u naxariistaan. haddaa aragto qof dadka dhibaya, dadka dhibaataynaya, dadka aan u naxariisanaynin, dadka aan daryeelaynin, qalbigiisaan waxaan gelin naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala. alraxiim ayaduna waa u roonaansho, inaad adiga ilaahay subxaana wa tacaala maadaama uu kuu roonaaday, adigana dadka inaa u roonaato. ina raxmatullaahi qariibun min almuxsiniin. culammadu waxay yidhahdeen marka aayaddan waxay sheegaysaa in dadka wanaagsan oo aadka u qiimaha badan ee fiican ee muxsiniinta ah inay ilaahay naxariistiisa ay u dhowdahay. sidaa darteed ereyga kelmadda alraxiim iyo kelmadda alraxmaan iyo kelmadda alraxiim farqi weyn oo mararka qaar lagu kala saaro male, maadaama labadooduba ay raxmad guud iyo raxmad gaar ah ay kala yihiin. ilaa ibnu cabaas radiallahu canhu uu yidhi magaca alraxiim iyo magaca alraxiim waa laba magac oo aad iyo aad isugu dhow, wuxuuna u isticmaalay ismaani raqiiqaani. waa laba magac oo isa saaran oo labadaba wada jilcan oo labadaba naxariis iyo roonaansho iyo u wanaajin muujinaya. sida ay ku kala naxariis badan yihiin ama ay ku kala fiican yihiin xataa ma kala garanaya buu leeyahay. sidaa darteed qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu naxariista ilaahay subxaana wa tacaala rajeeyo, isaguna khalqigiisa uu naxariisto. wallahu tacaala aclam. wasalaamu calaykum.